nin ayaa waxa uu aaday magaalo xeebeed si uu waqti fiican ugu qaato xilliga fasaxiisa waxa uu ogaa in xeebuhu ay yihiin meel ay isugu yimaadaan haween qaaqaawan oo nasturnaan iyo waxyaabo xaaraan ah si uga fogaado fisqiga ayaa waxa uu aaday meel cidla ah oo xeebta kamid ah waxa uu ahaa nin ilaaliya salaada oo waqtigeeda ku tukada isagoo xeebta ku sugan ayaa la gaaray xilligii salaada uu weyse qaatay waxa uu gudagalay tukashada salaadii isagoo salaada ku jira ayaa waxa soo hor istaagtay abeesa aad u weyn markii hore aad ayuu u naxay laakiin salaada kamaanu bixin waxa uu xusuustay in haddii uu salaada ku dhinto ay tahay meeshii ugu fiicneed ee lagu dhiman lahaa wuxuuna go'aansaday inuu salaada ka bixin salaadii ayuu sii waday iyadoo abeesadii ay hortiisa fadhiso markii salaada uu ka baxayay ayay abeesadii carartay haddaba daawadi adigu ahaan arrintaas haddii ay kugu dhici lahayd salaadu ma sii wadi lahayd mise waad ka bixin lahayd hoosna ugu reeb fikirkaaga fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkeena Rijaal Aljanna muuqaalkan la wadaag haddii uu ku cajib geliyo dhammaan saaxiibadaada hana ka iloobin like iyo comment